sida ogeed waxaan leenahay haweeneyda muslimka guriga kani si uu u dhisnaan karo wuxuu u baahan yahay gurigeenu inuu u ekaado gurigii jannada ka jiray guriga jannada ka jira haweenta joogta haddii la yidhi waa curban atraaba tani inta ay matali karto waa inay matashaa wax ceeba markaa ma aha marnaba waxa ilaahay xuralcaynta ku sifeeyey inay gabadha muslimadii ku sifowdo ceeb maaha ma aha ceeb markaynu leenahay waxaan u jeednaa ma aha wax laga khajilo alxayaa qayb ka midi waa madmuum qayb ka midina waa mamduuc waxa sharcigu baneeyay in laga xishooda waa madmuun baylay kuma jirto maxbuubaadka waxa la jecel yahay kuma jirto bal quraanku markuu tilmaamayay ragga iyo haweenka waxa la yidhi uhilla lakum laylata siyam ar-rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna wa min aqwali al-mufassirin fi ar-rafath waxay yiraahdaan hadalka markuu qofku caadigu meel ka hadlayo ka khajilo ama si aanu ku dhiiranin inuu yiraahdo guriga se waa la isu mar dhigtaaba wax laga khajila ma yaalaan sadaradeed kalimatu ar-rafath ay culimadu leeyihiin baa loo adeegsaday jimaaca oo muqaddamaadkiisa looga jeedo waxay yidhahdaan gabadh badawiyadoo reer miyiga ayaa qamiis cas iyo waxbay qaadato xinxinaysatay dabeetana tusbax bay qaadatay baa la yidhao meel bay fadhiisatay way wardid qolaa waxay ku yidhaahdeen maa bacda haada min haada labadana udodo kale foga inaad cuscusburato oo maryaa xidhxidhato oo iska dhalaaliso haddana aad wardi meel la fadhiisataa waa laba kale fog bay ku yidhaahdeen markaasaa waxay tidhi bay yidhaahdeen beyt ay leedahay ilaahay dhan buu igu leeyahay aanan rabin inaad dayaco dheeldheelkiiyo maradhigadka ninkayga xaggiisana qayb bay igu leedahay yana aan la rabin inaan dayaco bay leedahay yani labaduba waa bannaan yihiin si awgeed buu nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh isna wuxuu tilmaamaya xadiidka jaamicu saqiirka ku qoran saxiixa uu albaani ku tilmaamayo alaa ukhbirukum binisaa'ikum min ahli aljanna ma idiin sheegaa buu nebigu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh haweenkiina ahlu jannada ah sifada koowaad uu nebigu siiyey wuxuu ku sheegay alwaduud alcaquud calaa zawjiha التي إذا آذت أو أوذيت جاءت حتى تأخذ بيد زوجها ثم تقول والله لا أذوق غمضا حتى ترضى نبي عليه صلوات الله وسلامه عليه هوانك نكوا أهل الجنة وحويا الودود باطنك يا جعل كبار كسي فوضى جعلك كان أهل الجنة هوانك مسلمات كدنيا تشوغين جنة قلية صفدي لوجوه الرئيسية وحكم دينا نقطة محي تجعلني كده ووحدة ليسة وعقودة خير يوناقول من كده kula noqonaysa ta hadii ay wax dhinto ama iyada la dhibo intay ninkeeda gacanta qabato tidaada wallahi inaana waxba dhadhamin in la raali noqoto mooyaan hadii xataa iyada la dhibo buu nabigu leeyahay ama se iyadoo ay wax dhibto mar kasta waa u taagan in ninkeeda raali galiso walidalik ayaa Laura Dwayne gabadha la yiraahdo Mareykanka ee leebu garay u bixiyeen tarjumadiisa azawja almustaslima waxay tilmaamaysaa way gabadh guursatay dabeetana muddo markay joogeen bay ninkeedii istileen oo iska kala tageen waxay leedahay nooc min feminist groupyada iyo baabkan bay ku soo kortay inay ninka iska dhiciso iska celiso waa kaasi markii dambe waxaan fakiray bay leedahay raadiyay maxaan anigu ninkeygii u waayay reerahan jaararkay dadkanina wali xaasaskan isu qabaan dabeetana questionnaire bay qaadatay interview bay qaaday interviewgeedii waxa uga soo baxay reer kastoo dhisan inuu yahay reer isu jajaban oo haweentu ay tahay mid ninkeeda jecel oo u jajaban oo waxba ku qabsan walidaalka baa waxay qortay book ay yiraahdaan tabcadii koowaad ba 100,000 oo xabaa la qaatay ay u bixisay almara almustaslima istaslimi li zawjik bay buuga fikradiisa dhamaynta ninku waa libaax bay leedahay hadii aad isku soo taagtana wuu ku cuni hadaadeen u jajabnaatana afkiisaad kala bixi bay leedahay waxa ku jira sadaradeed jajabni isdiib bay leedahay wax kasta waa lagu siinaya hadaad adigu isdiibto wax kasta waa lagu siinaya sadaradeed baa Aisha waxay leedahay nabiga salawaatu ullaahi wa salaamu calayh ayaa intaan weel wax ku cabba nabiga ayaan u dhiibay leedahay dabeetana markaan u dhiibo wuxuu eegtaa nabigu halkii aan waan af ka saaray ki dhereerkeedu ku yaalu ka daba cabaa nabigu salawaatu ullaahi wa salaamu calayh yani waa guri reer ku wada nool sadaradeed waxay leedahay weelkii aan wax ku cabay markaan nabiga u dhiibo halkii aan afka ka saaray weelka ayuu nabiguna salawaatu ullaahi wa salaamu calayh afka ka saaray waxay leedahay araq waa lafta hilibka waliba marka inta badan laga dhameeyo wax yaroon ku sii hadhadheen laf baan feentaayo halkaan ka goostay oo intaan feentaan u dhiibaa halkii aan ka goosto isna ka sii feentaa bay leedahay nabigu salawaatu ullaahi wa salaamu calayh yani Aisha dhaqankan waxay u soo guurinaysaa in muslimiinta barto nabi Muhammad salawaatu ullaahi wa salaamu calayh sidoo u dhaqmay waxay tilmaamaysaa guriga sidoo uga dhaqmay inay ahayd weelka haweentiisa wax ku cabtay halkay afka ka saartay inuu afka ka saaray waxay tilmaamaysaa iyadoo xayd leh inuu dhabteeda ku tiirsanayo oo ku jiifsanayo habeenkii picnic baan wada bixi jirnay bay leedahay waa israaci jirnay lin tanazzuh wa nabiy rasuul waliba goorma jooga dhowr iyo konton jira
odhan anigu oday baan ahay oo dee dhallinyarada raacraacda islaamaha anu ma dabagala maaha waa nebi rasuul ah oo dhowr iyo konton jira calayhi salaatu wasalaam oo la socda haweenkiisa tii u da'yaray gabadh dhowr iyo 10 jira la socda waa madiina iyo nebi maxamed salawaatullaahi wasalaamu calayhi oo dhowr iyo konton jira ayaa waxay leedahay biknik baanu wada bixi jirnay bale waxaad ka garan kartaa nebigu salawaatullaahi wasalaamu calayhi ma qarsanaynin xataa kalgacalka innaga waxa laga yaabaa ninku nin soomaaliyeed bal kudha gabadhaadaba jeceshay hayru macquul waxaasi wax af la soo mariyo way ka weyn tahay nebi maxamedna inta saxaabada u yimaadeen bay dhahay ilaahay rasuulkiisiiyo dadka yaad u jeceshay dee caasha buu yidhi nebigu in nebi maxamed su-aala la weydiiyo dadba yaad u jeceshay oo idhaahdo caasha markaasay idhahdeen raggaanu u jeednaa markaasuu yidhi abahe abubakar idan waxaa la rabaa waxa weeyaan in gabadhu ay u muuqato dareensiiso ninkeeda inay jeceshay cagsiga waxaa kaloo la rabaa ninku inuu muujiyo haweentan kalgacal iyo wanaag inay ku wada joogaan uu jecel yahay ma aha aniga iyo tii gurigayga joogtay maraanu israacnay ama aniga iyo yani xataa inuu yidhaahdo reerkaygii ayuu afka kala warwareegaya marka aniga iyo tii guriga joogtay buu leeyahy asalku laakiin waxa weeyaan nebigu salawaatullaahi wasalaamu calayhi intuu guriga soo galo ayuu shaqada guriga wax ka qabanayay oo uu la qabanayay haweentiisa tan bal si uu cawaatifteeda u ilaaliyo haweentiisu jeclaa asxaabteeday jeclayd ayuu nebigu hadiyada u diray caaisha waa tii xadiidka saxiixa ku tilmaamaysay saxiixu muslim ku yaalay marka neef la qalaba nebigu wuxuu idhaahdaa khadiijo asxaabteedii hilibka wax uga dir hatay caaisha lahayd weligay gabadh kuma hinaasin haweentaa dhimatay oo aanan isa soo gaadhin sidaan ugu hinaasay bay leedahay siduu nebigu jacaylkeeda uu muujisanayay aanu u qarsanaynin inuu jecel yahay ayuu muujisanayay bale asxaabteedii dadkii ay ku xidhnayd inuu jecel yahay